hay-adaha ammaanku ha iska bari yeeleen dadka afka duuban ee soo baxay 3 bilood 4 bilood 5 bilood oo dambeeyay ku soo badanaya dalka ee kiisaska kala duwan la geystay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay wariyaal weer lagu geystay magaalada Hargeysa waxaanu laamaha amniga ugu baaqeen in sharciga hor keenaan dadkii falkaasi geystay xildhibaanka oo arrimahaas iyo kuwa kale ka hadlaya waxadaladiisii ka mid ahaa saaka waxaanu hadlaynaa annagoo idin kala dareena weerarkii lagu qaaday barkiin habeen hore waxa la hay-adaha ammaanku ha iska bari yeeleen dadka afka duuban ee soo baxay 3 bilood 4 bilood 5 bilood oo dambeeyay ku soo badanaya dalka ee kiisaska kala duwan la geystay waa halkay ka bilaabanto dawlad burburku waa halkay ka bilaabanto maxaa la yiraahdaa qaran jabku waa halkay ka bilaabanto nabadgelyo darradu weey ninka yaraysanaya arrin yar ma waayo waayna ka maxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Yare oo inta caawa isagoo halka ka talaabay inta la cuno laagta la dhigo halkaan bay ka bilaabataa fidnadu meel kale kama bilaabato dalkeena miyaan doonaynaa inuu noqdo meel qofka hebelmee mooyin leeyahay miyaan doonaynaa ma doonayno qof anigu waxaan idin aqaanaa heelka qof walba oo Soomaaliland jooga waxaan idin aqaanaa heelka hooyada haraadan waxaan idin aqaanaa heelka hooyada gaataysan waxaan idin aqaanaa heelka hooyada cashuurteedii la dhacay waxaan idin aqaanaa heelka hooyada caruurteedii iskuul weeday waxaan idin aqaanaa heelka qof jagadiisii yarayd mid ka xoog weyn oo ka qaatay waxaan idin aqaanaa xoogga soo qabta kuwa sharciga ka dhuunta uma qalantaan in habeenkii afka la idin soo duubto la idin weeraro uma qalantaan in baabuurta sidaad ku hesheen uu Ilaahay og yahay in idinka jabiyo uma qalantaan saxaafadu waa tiirka waxa la yiraahdaa afraad ee qarannimada golaha wakiiladu marka la soo weeraro way isku damqadaa fulintu way isku damqataa way isdifaacdaa garsoorkuna wuu isku damqadaa wuu isdifaacaa idinku laakiin waxa idinka muuqatay inaydan isku damqanaydaan isdifaacin waa la idin kala qaybsaday haddaan la idin kala qaybsan la idin ma soo weerarin Maxamed Muuse Cabdilaahi Maxamed Jeesto Gobonimo TV Hargeysa